horta goluhu dad dusha ka yimi maaha ama meel kale naga yimi waa niman reer Somaliland xushmad ku leh qiimeyn ku leh qadarin ku leh xogaa waxaad moodaa abrojka ay wax u toosinayaan inuu kala duwan yahay abrojka ay u mareen wax toosinta in wax la toosiyo absolutely waa isku raacsan laakiin dariiqo loo marayo wax la toosiyo goluhu waa golo sideeya golo sharci oo gol yahayba mise waa golo isxilqaamay ma golo marka waxyaabaha lagu kala duwan waa taa maandhood comments-ka ay dibiga soo noqonay maandhood hadal aan eri oo xogaa aad moodo in si loo yar bunbuuniyo xagga meeriyahana waxaan kureerda daarmaya in waxa la yiraahdo sideeduna u sheegaan in badan oo saaxiibanahay waxa taa aan toos wada hadalno arrinta yar qoosaday laakiin macnaha wax dhibaato ku keenay kara degmada aan mas'uulka ka ahay ma ogoli hadaan raahdo ya xaq baan ku taagaa laakiin cid kasta oo wax toosin wada maamulka laftigiisa loo sameeyay in wax toosiyan loo sameeyay hadalkana in xaga dhinaca la doonayo loo yiri xamaahay sida loo yiri hatta khalad baa noqdo oo in loo sheega qurux badan goluhuna de waxa weeyaan sidaan hore loo sheegay runtii golayaasha cidijin way jiraan gola deegaan way jiraan gola baarlamaan way jiraan gola uu jiraa guurti de golaha kale kulay waxaan u maleynayaa hadalka halka title-ka ayaa bad muddo inay si kale wax yar leexsan yihiin aw shaabal in dib loogu noqdo kulay anagu horena waa uga hadlay in ka soo hadalkii hore aan la leexiyay fikirkan ka qaba waxa weey in la wax la toosiyo waa la isku raacsan yahay laakiin abrojka loo toosinayo iyo cid toosinaysa maamul baa jira system baa jira dawliya in wixii ay daliil ay leeyihiin dariiq sax loo maro oo la toosiyo absolutely waa mid sax laakiin hadii cid toosinaysa dariiq ay martay iyo title-ka ay qaateen oo sharci ka leexdo dareena badan oo dhalanaysa runtii oo de laba nidaam kama wada dhisnaa wadanka nidaam sharci ah oo mid walba roolkiisa uu leeyahay baa dhisan taa waa kulay maanta hore oo ka hadlay waxaa sheegay in badan nabasha washtashiga ku soo adeegay magaalada Boorama arrimaha nimanka siyaasiyiinta iyo dowladda ku soo jeedo waxaan jecel marta dadku way oran jireen dowladda naasku maqan waxa kan laga ogolyahay ma aha gola aan sharciga waafaqsanin system iyo nidaam iyo dastuur iyo sharciga ku kala soconaa haddii constitution-ka aynu dejisanay aynu ilaashan weyno waxa inaga wax inta ka liidana golaha sheegay gola aan sharci ahayn lama ogola degmada Boorama hal baa sheegtay ma soo gali karaan absolutely